madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xarunta madaxtooyada waxa uu ku qaabilay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Barre Maxamuud iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin macalinka xulka 17 jirada qaranka iyo ciyaaryahan Cabdilxafiid Maxamed oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii dhawaan ku soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 17 jirada. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha heer federaal iyo sidoo kale heer Jubbaland shaqada wanaagsan oo ay hayaan iyaga oo ay goobjoog ka ahaayeen kulanka wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Aweys Maxamed Xuseen iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta Jubbaland Axmed Faarax Taqal. waxaana madaxweynaha uu sidoo kale uga mahadceliyay laacibka u soo baxay xulka qaranka Cabdilxafiid Maxamed oo u rajeeyay mustaqbal wanaagsan iyo in uu guulo badan u soo hoyo qarankeena. wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ustaad macalinka xulka under 17 ka ustaad Nuur iyo laacib Xaafid oo maalmaha magaalada Kismaayo la joogay saaki waxay ku soo dhaweynay xarunta dowladda Jubbaland ay nolol kulmeen madaxweynaha dowladda Jubbaland sidoo kale madaxweynaha wuxuu u ballan qaaday inay kulmi doonaan marka uu Muqdisho tago macalinka iyo dhammaan xulka under 17 ka dowladda federaalka Soomaaliya kulanka madaxweynaha anaga wuxuu daarnaa on kulan soo dhaweyn iyo salaan madaxweynaha wuxuu ballan qaaday in guud ahaan xulka iyo macalinka isla socdo uu la kulmi doono maalmaha soo socda markuu Muqdisho tago u sameyn doono qado iyo casuumaad is arag ah. kulanka ama wafdiga waxa qayb ka ahaa laacib ciyaar sameeye Xaafid oo madaxweynahan is arkeen sidoo kalena wax badan is dhaheen Xaafid maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo reer Kismaayo reer Jubbaland ah madaxweynaha wuxuu u sameeyay soo dhaweyn iyo sidoo kale ballan qaadyo. Cabdi Naasir Socdaal Bilan Radio.